community-ga meesha degan cad ku leh oo gurigaaga wax ku saamaxaya inaad xaafadda degan tahay cod ku leedahay inaad dhulka xuquuq ku leedahay inaad iskuulka carruurtaada dhigato xuquuq ku leedahay inaad neighborhood house-ka xuquuq ku leedahay cod leedahay liability-na wuu leeyahay waa inaad ilaalisaa xaafadda habsamideeda waa inaad caws ka jartaa waa inaad deeq hadduu yara jaban yahay dib u hagaajisaa waa inaad guriga dusha rinjiga aan ku xumaanin waa inaad dhalinyaro teenager oo carruurtaada saaxiibadoodii hadday agaarka taagtaagan yihiin waa inaad nidaamka habsamida xaafadda u degan tahay aad ilaalisaa waa inaad macnaha maabuus wanaagsan oo dariskaad la soo degtay aan meel kaga dhacayn la timaada waa inaad ogaataa xaafadaada ayaa madax ka ah brisinka booliiska ku dhow waa kuwe xaafadda dabdamisku waa kuwe waa inaad runtii qof active noqoto xaafadaad degan tahay waxa ka socda aad og tahay waa inaad og tahay jidadka marka la dhisayo in loo codeeyo waa inaad og tahay in cashuur kugu soo socoto marka jid la dhiso usually xaafadda dadka degan baa laga qaadaa cashuurta marka waa inaad biyaha systemkeeda ogaataa waxaad kaloo bixinaysaa sewage systemka oo garbage-ka kuwa qashinka qaada lacag baad bixinaysaa mas-uuliyad badan orientation fiican baad u baahan tahay oo ku saabsan guriga ilaalintiisa xafididiisa iyo xaafadda deganaanshaheeda iyo iskuulaadka eriyada ku yaala kuweebaa ugu fiican oo carruurtaada ku habboon oo macnayaa aad baad mahadsan tahay waxaa jira guryaha qaarkood hawsaska markaad ag marayso calaamado ka hor taagan ama ha noqon lahayd musharax iyo kuwa dhahaya gurigan baad iibsan kartaa kuwaasi ma dadka guriga ka sii iibinaya suwa kuwa iibinaya waxaa dhiga macnaha usually marka aad guri leedahay oo aad rabtid guriga inaad iibisid keliga waxaa jira guryo ninka ownerka ahi uu iibiyo isaga sell by owner moogtahay taas aad buu adagtahay qofkii inuu iibiyo waayo marketkii suuqii oo dhan uma leh furo uma haysto laakiin waxay usually isticmaalaan anigoo kale Rashid Financial Service company-ga iyagoo kale ayay yidhaahdeen gurigan aan rabaa inaad suuqa noo gelisid marka waxaan soo gelin calaamad marketingka guriga aan u samaynayno ayay ka mid tahay calaamadaha aan guriga hortiisa ku rakibno oo macnaha numberka xafiiska iyaga ama company-ga iibinaya ku qoran waxa kaliya mainly ku qoran company-ga iibinaya magaciisa iyo agent-ka iibinaya magaciisa marka qofkii gurigii guri ka galaa waa inuu la xiriiraa numberka ku qoran boardka meesha ku dhagan waxaa jira calaamado kale oo meelaha dadka ku dhajiyo oo dee ay ku taageerayaan dadka siyaasiyiinta ah ee xaafadda u ordaya ama magaalada u ordaya ama gobolka ama Obama kale u foodkareynaya ama McCain marka laakiin calaamadda real estate-ku usually company-ga iibgaas inuu iib yahay marka qofkii guriga soo agmara oo hunguri ka gala waa inuu wacaa numberka ku qoran oo yidhaahdaa waxaan ahay qof dabacsan guriga intaadan la xiriirin xataa company-ga iibinaya number 1 waa inaad heshaa real estate agent waayo guriga iibsashadiisa waxaa la xiriira arrimaha fara badan sharci badan baa la xiriira company-yo badan baa la xiriira oo arrinta kala wareejiya company-ya guriga kala wareejiya inspection baad u baahan tahay appraisal baad u baahan tahay lender baad u baahan tahay title company baad u baahan tahay oo ka mulkida kala wareejiya marka waxaasoo dhan qofka hore uga shaqaynaya ee laysanka u haystaa ayaa kaa caawinaya wadadii loo mari lahaa si ay kuugu fududaato hawsha xogaa lacag inaad bixisaa laga yaabaa laakiin dee waxaa tahay protected qof maaragtay aan hadhow wax khalada laga saxeexayn baa tahay marka aad maaragtay iibsanaysid guriga aad bay muhiim u tahay inaad real estate agent la hadashid waa gartay gabagabadii haddaan soo gaarno Rashid waxaa jira in xafiiskiinan uu tax return-ka ahaa kambaniyada ugu waaweyn ee Soomaalida u xareeya department-kaasi miyaad si wadaysan soo xiraysan maya aad iyo aad baan ugu faraxsanayaa su-aasha weydiisid wallahi Rashid Financial Service business-kii ugu horreeyay aan bilaabay oo macnaha aan u arkay xataa businessyada kale dadkeenu inay baahi dheeraada u qabaan waxa ka mid ah tax return-ka maaragtay waayo eedo badan baa maaragtay ka dhex dhaca Soomaalida dad badan oo aan shaqadii xilkas u ahayn baa qabta taas anigu markaa dee waxaan u haynaa proven record inaan dad kale oo meelo badan dhibaato kala kulantay inaan income tax-ka u faalgareeyo inaan kala taliyo haddii ay wax ku soo noqdaan inaan amendment u sameeyo inaan wixii maaragtay waraaqo marka dadka loo soo diro ama xoogaa confuse
tusaale hadaan soo qaato gabadh baa shalay timi warqad bay sidatay moogtahay marka waxay tiri nin tax preparer ayaan u dhigtay kiiskayga business baa furtay marka waraqaa lagu soo waalay cashuurta soo bixi baa leeyahay marka ninkii markaa la tagayna wallahi waxaani IRS kala xiriir ugu yiri halka waxa ka muuqata qofka gabadha shaqada u qabtay inaan professional job qaban aniga waan cidna ceebeynay haddana wixii hadaan aqoon u lahayd runtii intaad meel istaagtay dadkii lacag ka u guri inuu dadka waala ma waxba laga ma rabin company bay file garaysay tax ID bay file garaysay oo Minnesota marka iyo federal qofku marka uu employee tax ID aad la garanaysa company-gaaga waxa tahay employer marka hay'adaha cashuuruhu waxay u qaadanayaan inaad dad shaqaaleynaysid marka waxay ka rabaan inaad diiwaan gelisid dadka shaqaaleysay marka gabadhii oo lacag ila diyaar imsan ku siyaad hawshan ugu qabanaysa diyaar waxa kaliya oo ay iga baahnayd inaan iraado markii dad aad qoratid baad ka jawaabaysaa marka waxyaalaha simple ah hataa wajaha wareer ku haya dadka so wallahi xafiiskaygu aad ugu furay oo dadka u caawiya sanadkoo dhan ugu furan yahay maarka absolutely aad baad maasantahay gabagabadii maxaad kula talin lahayd dadka doonaya inay guriyeysadaan waxa kula talin lahaa talaabada koowaad inaad u diyaar garoodid inaad mas'uuliyad qaadida guri iibsatid inaad gurigu sidii karadii maaha oo bisha ku xigta kama guuri kartid waa financial commitment waa inaad ku talagashaa inaad muddo ku jiraysid lacagta aad qaadatay sii bixinaysid muddo dheeraad cashuur bixinaysid number 1 inaad la hadashid qof professionally licensed ah oo real estate agent ku tagtay ama anaga ha noqdo ama kambaniyada kale ee ka shaqeysta ha noqdo waayo qofku real estate ka kama hadli karo ilaa uu license haysto waa sharci u jibinaya hadii kale marka qofka license ka haystaana wuxuu oranayaa xeerku qoraya adiga iyo qofka guriga iibsanaya ama aad u iibinaysid waxa ka dhaxeeya wax laga yiraahdo fiduciary duty macnaheedu waa maxay qofkii inaad highest professionally aad u caawisid inaad privacy ilaalisid inaad hantidiisa ilaalisid inaad sumcadiisa ilaalisid in shaqada ugu fiican u qabatid oo guriga ugu fiican oo heli karo aad tustid marka inuu qof real estate agent tagowiya ama la xiriiro ama hire gareeyo moogto waa muhiimsan. Thank you very much. Allah عشق علفك وعنا عيدي دلكيجي عردي